walaalayaal waxay nagu soo dhow Ramadaan cidii Ilaahay uu gaarsiiyay waqti yar oo kooban baa ka dhiman ugu badnaan 3 maalmood waxay noo soo warayeen nasiimkeedii iyo carafkeedii iyo udgoonkeedii baynu dareemaynaa qofkii alla waafajiyo Ramadaan waa fursad aad u qaaliya oo qofka cibaadada u heelan uu jeclaysanayo inuu ka naxay waxa u baahan inay dib eegno sanadii hore iyo ramadaanadii hore inta dad inala joogay ehel leh asxaab leh macaarif leh dad dib u tiriso waad yaabi alaabta bad iska soo xidhxidhanoo aduguna ama inaguna kuyugaa baynu isu sii diyaarin doonaa waliba ayaamahan dambe sida loo soconayay waa 10 iyo cibro wax lagu cibro qaatana geerida u mudan qofka isag joogteen ama isku ag tukanayseen ama isku shir fadhideen ama isku xaafada haydeen markuu libdhu qarsoomaanu soo noqonayn adigu maxaad sugaysaa meesha hadaba mudnayda laga sahay qaadanayo waa Ramadaan waxa la sahay qaadanayaana waa camal ee daaraha iyo dunyada maaha marka fursadda qiimaha badan ee qaaliga ah fadligeedii waxa laga faa'iidayo baynu ku soo koobsan doonaa insha Allah 8 arrimood oo inagu filaan doona arinta oo horeysa waxa weeye bishani waxay leedahay khusuusiyaad waxyaabo dheeraada bisha dhexdeeda insha Allah hadaynu gaadho waynu ka sii warrami laakiin ilaa 7 arrimood ayaa xadiidkan uu sheegaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku xusay xadiidkan oo saxiixa dadka isagoo u bushaareynaya bishana tarxiibinayo soo dhaweynaya wuxuu oran jiray qad jaakum shahru ramadaan waxa idin yimi bishii ramadaan shahru mubaarak wa bil barakaysan marka ramadaan kariim iyo ramadaan mabruuk midna inaan la oranayn ba xadiidka laga faa'iideysanaya la oranaya ramadaanul mubaarak nabiga magaca u bixiyay mabruuk iyo mubaarak way kala duwan mabruuk waa waxa fadhiya la yiraahdo laakiin mubaarak waa shaygi barakaysna mubaarak bikasri raana maaha bikasri raadi la akhriyo la yiraahdo mubaarak waa qofkii wax barakaynay marka waa bil barakaysan kataba Allahu alaykum siyama waxyaabaha dheeraadka lat waa inay barakaysan tahay waa in soomkeedu waajib yahay oo bilaha kala taaway kaga duwanta bilaha kala soomkoodu waa sunni fihi tuftahu abwaabul janna albaabadii jannada la furaya in ka badan intii hore wa tuqlaqu fiha abwaabul jahim naaraha albaabadoodina waa xiraya wa tughallu fihi maradatu shayatin shayatintii madaxa adkaa dhibka inagu haya cibaadada inoo diidana dagaalka adkaana waa la xiraya lillahi fihi laylatun khayru min 1000 shahr ilaahay wuxuu habeenkan umada u dhaxdhigay bishan u dhaxdhigay habeen ka fadli badan 1000 bilood man hurima khayraha faqad hurim nabi wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam bishan qofka laga caraf seejiya laga qadiyo ee loo diido ee loo qadarin khayrka ay leedahay faraha badan kaasi waa calaf go'ay marka arrimahaas oo dhan buu nabigu ku yabohay calayhi salaatu wasalaam marka intaas oo arrimood kol haday bilihii kaga duwanta inaynu isha si gaar ah ugu haynaa oo inuu han weynaanaa wax weyn weey qodobka labaad waa sababaha lagu dhaafo dambiyada innagana waxay noogu darani waa dambigeena oo cid kale oo ilaahay ahayn oo inaga dhaafaysa aanay jirin rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiid waxa uu ku saxiix muslim ku sugan as-salawaatu al-khams wal-jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadaan ila ramadaan mukaffiratun lima baynahun majtunibat al-kaba'ir salaadaha shanta ah iyo labada jumce iyo labada ramadaan inta u dhaxdhaxaysa ilaahay uu ku dhaafaa dambiga ana ramadaantii hore wixii ka dambeeyay ilaahay tanu inaga dhaafay insha Allah ta'ala dambiyada waaweyn hadii laga durkabo nabigu dambiyada waaweyn waynu ka toobad keenayna arinta saddexaad ee bishani fadli ay leedahay si aynu ugu dhiiranayn u jeclaysano waxa kamida inuu soomkii noqonayo ilaahay hortiisa mid inooga ergeeya maalintaana aad baynu ugu baahannahay ilaahay inuu hor taagannahay cid inooga ergeyso alla ergadeeda uu aqbalayo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yiri xadiis saxiixa
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صومك إيا قرآنك لبدا سبا أدونك وي أشفاعة قاضي وي أرقينيا إلهي بي أرقينيا مالنت قيامة miduu waliba gaarkiisu u doodayaayo soomkii wuxuu leeyahay ilaahay waxaan u diiday qofkan cunadiisii iyo rabitaankiisa quraankiina wuxuu leeyahay hurdadii baan u diiday habeenkii oo dhan buu akhriyayo oo igu soo jeeday rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam fayushafa'an waa laga erga aqbalaya amalka saalixayn ilaahay ugu tawassulayna inuu ugu dhawaanayna markuu inoo ergeeyo ilaahay baa ka aqbalaya ergada wax lagu yidiisho qaaliyow cibaadadan iyada ah waxay leedahay dheeraad uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam adoomaha ku dadaala caanka ku ana casuumad gaar oo ilaahay u fidinaya maalintu awliyadiisa jannada geynayo nabigu waxa uu ku yiri calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ahaa jannada waxa ku yaala albaab la yiraahdo rayaan waxa ka gala kaliya dadka soomka caanka ku ah markay galaan ay ku dhamaadaanna waa loo xidhaa anagu si gaar ah u casuuman maadaama amalkoodu ahaa mid khaas ah oo si khaas oo iyaga ilaahay una isla ogaayeen cibaadadan fadligeeda waxa ka mid ah nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ama aan nidhaahne waa habaaray rasuulka iyo malakul jibriilba cidda bishan ka calafkooda ee ka faa'iideysan weyda ee meel baa soo daran oo kale u kacda malagu nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay oo uu ku yiri saddex jeer buu aamiin dhaydi nabiga aamiin qofka ramadaan u soo gasheen soomin ama nabi maxamed maqleen ku saliin ama waalidkiisiba aanu samafalin ee ilaahay uu naarta geeyo Allah ku fogeeyo aamiin nabiguna aamiin buu mid loo ergeeyaba ma kaasi waa inkaar qabe xadiidkuna waa saxiix habar malag iyo mid nabi meesha isu raaceenna hawl adag baa ka jirta qofkaasina waa qof halaagsamay Allah inaga yeelo fadaa'ilka bishan waxa kamid ah inuu yahay dariiqun cadiimun ila aljanna waa wadada loo maro jannada asxaabtu ridwaanullaahi calayhim allaha ka raali noqdeen rasuulkeenna waxay weydiin jireen wixii u keenaya ilaahay raali noqoshiisa ay ku helayaan ama jannada ay ku helayaan hankooda weynaa halka laga yaabo inagu inaynu aad ugu hanweynay adduunyada iyo arrimaheeda yaryar asxaabi abi umaama la oran jiray radiyallahu anhu warda ayaa rasuulku su'aal weydiiyay wuxuu qultu ya rasuulallahi dullani ala amalin adkhulu bihi aljanna anigu hal arrin baan ku weydiinaya amal aan ku galo jannada bal mid amal noocaas oo ku dhaga uu dhiib rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu soo gaabiyay wuxuu yiri alayka bisawmi fa innahu la mithla lah waxaad ku dadaashaa soomka wax la midiba ma jireen asxaabiga abi umaama la yiraahdo waxa uu ahaa la yura fi bayti dukhan naharan illa idha nazala bihi dhayf inta wixii ka dambeeyay maalinkii gurigiisa dab laguma arki jirin macnaheedu waxa weey dab muu shidan jirin maalin oo dhan uu soo malaan jirin marka martiyo timaada mooyaane oo de martidii waxay leedahay in la maamuuso wax loo kariyo oo la sooriyeeyo hadii aan martidaasi la joogin soomkiisu wadan jiro habeen u buux karsan jiray de wuxuu ka ballan qaaday wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyay ee isaguna u sheegay soomkii faralka iyo kii sunnah labadaba waa noqonaya soomku waa kafaaratu lilmukhaalafaati wa lihinth alyamin dhaarta culus marka waa adoonku fulin kari waayo waxyaabaha lagu furdaaminayo ka mid yahay soom ee ilaahay ku dhaafayo qofka dhaarta suuratul baayida ilaahay wuxuu ku xusay inuu bixiyo raashin iyo dhar la xidho intaaba haduu waayo ilaahay wuxuu faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam dhalika kafaratu aymanikum wahfadhu aymanakum idha halaftum waxyaabaha hore hadii weydaan waxa ku dadaashaan kafaara gudka dhaartu inuu noqdo 3 maalmood oo qofku uu soomo dhaartiina waxa idinka salabaynayo idinka safaynaya oo ilaahay idinkaga dhaafaya soomkaas baa ilaahay subhanahu wa ta'ala fadliga cibaadadan waxa kamid ah qofka ku dadaala annahu yakunu min as-siddiqiina wash-shuhadaa waxa uu kamid noqonayaa dadka ugu fadli badan adoomaha ilaahay
kuwa runta badan iyo kuwa naftooda quudhay ee dagaalka gaalada ku shahiiday liiskaasunbuu ku jiraayo kuwaasunbuu la mid yahay bushaaro uu nebiguna siiyey waya calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay xadiidkuna waa saxiix cabru bnu mura aljuhani allaha ka raali noqda ayaa wuxuu nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ninkaasi su-aal buu nebiga inoo weydiiye waxa uu leeyahay ara'ayta in shahidtu an laa ilaaha ila allah wa annaka rasuulu llah waxaad iga warantaa rasuul allah haddaan ilaahay qiro oo adiga aan ku qiro rabbi iyo rasuul haddaan qiro wa sallaytu salawaati alkhams shanta salaadoodna aan tukado wa addaytu zakaa wa sumtu ramadaan wa qumtu miman ana haddaan ku dadaalo arkaanu islaamkii towxiidkii salaadii sakadii soomkii iyo sarajooggii habeenkii ilaahay loo cibaadaysanay inta haddaan ku dadaalo bal anugu qoladeen ku jiraa dad badan baa fadli diintu ay u sheegtae dadka aan liiskooda ku darmayeen aan ku yididiilanaya waa kuwe rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi min asidiiqiina washuhadaa waxaad ka mid tahay dadkaa ilaahay qur-aanka ku sheegay cid la tamaniyo oo la jeclaado oo lagu yidiisho iyagu u fiican kuwa runta badan iyo kuwa shahaadada liiskooda ayaad raacaysa ilahay wuxu uhi waman yudic illaaha waalrasuul faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i waالصaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa cid lala rafiiqana kuwaasa u wanaagsan buu lahay qofka ilaahay adeecee ka tala qaatee nafta aan ka tala qaadan dadkaasuu raacayaa jannada uu la gelayaa inahaas waxay ka mid yihiin fadaa'ilka bisha inagu soo aadan ee inagu soo foolle aynu ilaahay ka filay inaynu ka sugayno inuu ina gaadhsiiyo si nabada inagu gaadhsiiyo iyo caafimaad qab marka waxaa kaliya inala gudbani waxa weeyaan inaynu guntiga giijasano oo bishan si wanaagsan aynu u waajahno soomkeeda iyo qiyaamkeeda iyo cibaadada qaybaha kala duwan in lagu akhriyo oo lagu dadaalo oo ehelka iyo ummadana lagu abaabulo sidii khayrka ay uga faa'iidaysan lahaayeen waa fursad qiimo badan oo nafta lagu edbinayo caafimaadka ruuxda iyo jidhkuna uu ku jiro si ay u tamariso sanadka inta hadhay sahay wanaagsanna addoonku u helo allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بالصحة والعافية يا الله اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة